الأنبياء سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمان ومدر هير نقشي وفتي بلارنا قدوميها قبل كوجو الريو حبناها دقموينك لديجانك أما كل هراريسن دقمدن إمام الكودر كان يشوفه مدح رقماتك هواينك شرفت بدن لما waxaan idinku salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kole waqti kulul baa la joogaa baadna waa la taagan yahay halkan waxaanu u joognaa waxa weeye waa munaasabada xil wareejinta labada xubnood ee lagu kala wareejinayo waa mid baalkan ah munaasabadaas baynu u fadhinaa maanta xil wareejinta marka waxa weeye gudoomiyihii hore maxamed jaamac waynu ducaynaynaa wixii uu qabtayna ummadda iyo deegaankiisa waa wax uu gashaday waana uga mahadnaqaynaa muddadii uu joogay iyo sidii uu hagar baxay uga shaqeeyay axmed ama doctor axmed isna waynu soo dhawaynaynaa waxaanuna ilaahay uga baryaynaa ducu isaguna inooga baahan yahayo in ilaahay uu ku asturo xilka iyo mas'uuliyadda ummadda uu qaaday inaguna haddaynu nahay dadweynaha degmada Noqoshay aynu kula shaqeyno qofka haddaan lala shaqeyn oo maamulka ay la isbarbar taagin oo gacmaha la isu qabsanin in deegaanka iyo danta horumarkeeda isku aragti laga noqonin waxba inooma qabsoomayaan halkan rag badan baa waxay ka sheegayeen sidii Noqoshay ay tahay maanta wax cid la barayo Noqoshay iyada cid la bari maayo Noqoshay waa la garanayaa taariikhdii halganka waxa ahayd waa la garanayaa tii intii Soomaaliland waxa ahaydna waa la garanayaa tii tartankii xisbiyada iyo siyaasadda orodkii ka dhacayna iyana waa la garanayaa mar walba meel la ceeb ku bay qaadan marka taariikhdeeda iyadu waa mid hore u socotay shalayna waxaaba qabateen ciidankii cirka difaaci marka waxaan leenahay insha Allah taala Noqoshay waxa ka dhiman waa wax inaga ama aynu nagu waxaan hadaynu deegaanka dadka ka soo jeeda ama ha ku jiraan dawlad ama aadaan magaranaysaa ay ganacsato ama aadaan qurba jooge waa wax marka runta loo taabto wax inagu aynu iska hagranaynay u egtahay waxa weeye hadii aynaan isku duubnaan oo aanan iskuulka iyo dhakhtarka iyo meel kasta baahideeda marka aad wax qabsato dawladu waa dawladda waad aragtaan waxa weeye waxa resource-keeda iyo dalka waxa yaala wax wada gaaraya dalka ma aha marka aad wax la timaado hadda haaf la timaado waxba lagu daraya marka waxa leeyahay horta wixii inaga dhiman marka aynu gudi iyo odayaal iyo qurba joog cid walba aynu isku xidhnaano ee aynu danta degmada meel uga soo wada jeesano wax inaga xumaanaya ma jirto dawladuna diyaar bay noqotay wixii aynu la tagnana way ku qasbayaan wararkaasaan dhiganay ama waxaasaan bilownay iskuulka secondary-ga waa ogeeyay sida ku bilowdeen waqtigii magaranaysaa ay ariga intay soo qabtay reer Noqoshay nin walba neefka uu ku soo qoray iskuul secondary-ga dawladdu way ku qasbaatay in intii kale iyo wixii ka dhinaa idinku darto oo idila dhamaystirto marka insha Allah taala arinta iskuulka ballanqaad waana waanu ka haynaa isuduha wasaaradda waxbarashada gobolka afar macallin uu inoo ballanqaad Saleebaan horena waanu soo sheegay in sanadkan shaqaalaha la qaadanayo ee wasaaradda waxbarashada 300 macallin baa dalka oo dhan maxay talo qorsho ah in la bayrool gareeyo sanadkan 21ka burco waxaan adu dhowr iyo 30 gaareen ama dhowr iyo 30 ayaa ay ku yeelatay sad weyn ayuu isuduhu arinta uga gooyay burco marka uu qiyaasto dhowr iyo 30 gobolkii tog dheer oo dhana hadii afar laga siiyay Noqoshay marka qorshaheedii iyo procedure-keedina wuu socdaa insha Allah taala wixii laakiin hadayna inagu u diyaar garoobino iskuulka gudi adag loo sameeyo oo gudi horumareed degmada loo sameeynin gudi hore way jireen ma dhaliilayo odayaal mudakara oo magaranaysaa ay degmada iyo danteeda ka shaqeynaya maamulka la shaqeynaya way jireen laakiin se waxa la boardka laga jafo maamulka cusub ee imika jooga war xubno tirsan
oo tayaysan oo aad tusmayseen oo guddida horumarinta degmada ah oo qurbe iyo dawlad iyo albaab walba garaaca u sameeyo oo guddoomiyahana baal uu ku duulo u noqda insha allahu tacaala meel kasta oo danta degmadu gashana diyaar baan u leenahay inaynu kala qayb galno ula lugayno ula soconno ugala hawlgalana aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idin salaamayaa maamulkii degmada beledhig baa isaguna iminka soo galay soo dhoweeya beledhig degmada beledhig mar labaad marti sharafta muddada halkan inoo fadhidana aad baan u salaamaya guddoomiyaha gobolka ugu horeeyo